ismaqal wanaagsan daawadayaal halkani waa wararka online waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka ugu waaweyn duurnimadan dagaal ka socda Bardaale iyo ciidamada Itoobiya oo weerar culus lagu soo qaaday mid ka mid ah saraakiisha qaramada midoobay oo gaalkacyo lagu dilay xubna la kulmay madaxweyne Farmaajo oo uga digay kulamo uu la leeyahay beelo gaar ah qeyl loo sameeyay burburka ku yimid ciidanka maamulka Somaliland wasiirka amniga galmudug oo shil ka badbaaday iyo waxyeelo soo gaartay ilaaladiisa wasiirka arrimaha dibadda oo beeniyay warqad la sheegay in Puntland uga faa'iideeyay heshiis la gashay dawladda Shiinaha faahfaahin dheeraad oo laga helay heshiis degadeed oo dhaxmaray Puntland iyo dawladda Shiinaha madaxweynaha Itoobiya Abiy Ahmed oo sii kulleeyay xiisada u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya iyo Mareykanka oo dandaasi ku wada dawladda Turkiga intaasi waxa ay daawadayaal qodobadii wararka ugu waaweynaa iminkana ku soo dhawaada wararkaas oo faahfaahsan hadii aad ku cusubtahay fadlan subscribe saar wararka online si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay oo degdeg ah waxaan ku horeeyna markan dagaal saacado badan qaatay ayaa ciidamada Itoobiya ku sugnaa Bardaale lagu soo qaaday wararka naga soo gaaraya magaalada Bardaale ayaa sheegay in halkaasi uu ka socday dagaal xoogan kadib markii weerar ay ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab dagaalkan oo xalay saqdii dhexe bilowday ayaa la sheegayaa in intiisa badan uu ka socday hareeraha garoonka diyaaradaha ee magaalada wararka qaar ayaa sheegaya in weerarka lagu soo qaaday ciidamada Itoobiya ee saldhigga ku leh magaalada ciidamada Itoobiyaanka ayaa la sheegayaa inay rideen madaafiic culus oo si xoogan looga maqlay magaalada Bardaale ayaa waxaa saldhig weyn u ah ciidamada Itoobiya oo qaybta ka AMISOM iyo kuwa kale oo aan AMISOM ku jirin oo ka socda dalka Itoobiya waxaa si aad looga maqlay magaalada jugta iyo hubka culus la isku riday dagaalkaas wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan dhanka kalena qeyl loo sameeyay burburka ku yimid ciidamada maamulka Somaliland oo maalmihii ugu dambeeyay u goosanayay dhanka maamulka Puntland gudoomiye hore ee gobolka Oodal Gibiley Sool Maroodi Jeex Mudane Mustafa Cabdi Ciise Mustafshiina ayaa si adag uga hadlay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan Somaliland oo ku biiray maamulka Puntland saraakiisha iyo ciidanka u goostay maamulka Puntland ayaa waxay ka soo jeedaan bariga Sanaag kuwaas oo ka biyo diidan amar ahaa inay weeraraan degmada Badhan Mustafshiina ayaa waxa uu sheegay in nasiib darro tahay in qof Somaliland u dhashay gobolka uu doonaha ka soo jeeday oo u riyaaqo burbur ku yimaada ciidanka maamulka Somaliland Mustafshiina ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in mucaaradnimadu aysan ahayn inay u sacabatumaan burbur ku yimaada ciidanka Somaliland iyo nidaamka dooliga isagoo xusay in mar walba ay ka horeyso Somaliland xifaaltanka siyaasadeed ee kala dhaxaysa dawladaha jaarka la ah qoraal uu Facebook-giisa soo dhigay Mustafshiina oo kaga hadlayay arintaas ayaa waxa uu yiri waxaan arkayaa in dadka qaar ay wax weyn u arkaan saraakiil iyo ciidan ka soo jeeda bariga Sanaag ee u goostaan maamulka Puntland kadib markii sida la sheegay lagu soo bandhigay deegaano ka tirsan maamulka Puntland dadka arintan walaaca ka muujinaya waxay u arkaan in dhaawac soo gaaray ciidanka qaranka Somaliland waa nasiib darro in qof Somaliland u dhashay uu gobolku doonaha ka soo jeeday oo u riyaaqo burburka ku yimaada ciidanka maamulka Somaliland ciidamada Somaliland waa kuwa suurta galiyay inay gees maanta nabad ahaato oo aanan la duruuf noqon kuwa ka dhacaya jaarkeeda ayuu yiri marnaba cududda ciidamada qaranka Somaliland noqon mayso mid wiiqanta hadii uu madaxweyne Muuse Biixi amray in la tiro koob ciidamada isla markaasna la xisaabtamo waxa uu sidoo kale sheegay inay ku jiraan saraakiil iyo ciidamo si gooniya mushaar u qaata oo aan u tirsaneen ciidamada maamulka Somaliland ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay kalena warar aad isla dhaxmarayay ayaa sheegaya in Cawad oo ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo warqad u qoray maamulka Puntland kaas oo dawladda Shiinaha degad kala seexday Cawad oo qoraal soo saaray ayaa beeniyay arintaas madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi hogaaminaya ayaa dalka Beijing kulan kula qaatay madaxda ugu sareysa shirkadda Shiinaha ee Civil Engineering Construction Corporation wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland Faarax Cawash iyo madaxa shirkadda Shiinaha ee Civil Engineering ayaa kala seexday heshiis dhismo degadeed iyo kalluumeysi oo casri ah oo shirkadu ka hirgelinayso degmada Eel ee gobolka Nugaal heshiiskaas ay wada gaareen dawladda Shiinaha iyo maamulka Puntland waxa intaa kadib soo baxay warqad la sheegay inuu qoray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo loo diray safaaradda Shiinaha ee magaalada Muqdisho qoraalkan oo ku taariikhaysan 7 May ayaa sida ka muuqata waxa uu Cawad ugu sheegay dawladda Shiinaha
in dowladda federaalka Soomaaliya ay raali ka tahay heshiis la galayo madaxda dowladda Puntland isla markaasna ay soo dhaweynayso dowladda Soomaaliya heshiiska dowladda Shiinaha ay la galayso Puntland oo sida uu sheegay kaalin wax ku ool ah ka qaadanaysa dhaqaalaha horumarka maamulka Puntland. Si kastaba wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa beenisay inaan ayadu ka soo bixin warqadda lala wareegayo baraha bulshada taasoo sheegaysa inay tahay warqad uu saxay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Wasiirka ayaa sheegay in warqadda la soo qoray ay tahay mid been abuur isla markaasna la soo dhadhoobay. Qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu yiri wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxay cadeynaysaa in warqaddii lifaaq ahayd ee lagu baahiyay warbaahinta baraha bulshada aan ka soo bixin wasaaradda sidaas awgeedna ay tahay been abuur la soo dhadhoobay. geesta kalena ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sii kuleeyay xiisada u dhaxaysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Abiy Ahmed oo war ka soo saaray xiisada u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegay in ay tahay mid laga xumaado oo aan dan u ahayn dowladaha gaarka ah labadaasi dowladood. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa mar kale ka hadlay xiisada iyo khilaafka u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo meeshii ugu xumeed maraysa. Abiy Ahmed oo wareysi gaar ah siiyay qaybta Axmaariga ee idaacadda VOA ayaa sheegay in dowladda Itoobiya iyo dalalka kale ee gobolka ay isku dayi doonaan inay xal u helaan xiisada labadan dal. Ra'iisul wasaaraha oo hadlayay ayaa sheegay waa inaan midba midda kale caawinaa oo aan gacan ka geysanaa xalinta arrimaha taagan ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Waxa uu intaasi ku daray in dalalka dariska la Soomaaliya iyo Kenya ay walaac ka qabaan khilaafka u dhaxeeya ay saameyn ku yeelato gobolada dariska la oo dhan. waxaan ognahay ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Itoobiya dhibaato kasta oo ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ay nagu soo baahi karto sababtaas darteedna waxa uu sheegay inay ka shaqeyn doonaan xalinta khilaafka labadan dal u dhaxeeya. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ma sheegin qaabka ay u xalinayaan xiisada labada dhinac iyadoo ay Soomaaliya ay diidan tahay in Kenya wada hadal kala gasho xiisadan oo salka ku haysa badda Soomaaliya oo Kenya ay sheegatay. dhinaca kalena xubno la kulmay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa uga digay kulamo uu la leeyahay beelo gaar ah. Senator iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo laga soo doorto deegaanada maamulka Galmudug ayaa madaxweynaha Soomaaliya kala hadlay xiisada Galmudug ka taagan iyo arrimaha siyaasadeed ee Galmudug. Suuliintan ayaa madaxweynaha Soomaaliya ka dalbaday inuu joojiyo kulamada gaargaarka ah ee uu la qaadanayo beelaha deegaan maamulka Galmudug isla markaasna aysan ka warqabin xildhibaanada baarlamaanka deegaanadaas ka soo jeeda. xubnaha ayaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya kula taliyay khilaafka Galmudug ee siyaasiyiinta uusan gaarin beelaha iyo odayaasha oo hadda ka nabad ah cudurka Galmudug ee jahwareerka siyaasadeed. waxaana la kulanay madaxweynaha Soomaaliya waxaana u sheegnay in aan ku qancin kulamadii fashilmay iyo kuwa kale oo dhacayba oo ahaa kala geynta Galmudug ayuu wararka online u sheegay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulankaasi ka qayb galay. xildhibaankan oo la hadlay ayaa sidoo kale noo sheegay in Galmudug hadda uu ragaadiyay xasilooni darro siyaasadeed oo ku kooban hoggaanka maamulkaasi balse hadda ay dareemayaan in hoos loo dhaadhicinayo khilaafkaas oo laga yaabo in deegaanka uu saameyn kale ka dhaxlo. waxaa noo muuqata haddii aan hadda la daba qaban in Galmudug khilaafkeeda hoos loo daadejinayo oo dagaal iyo musiibo kale laga rabo waana sababta aan uga dignay hoggaanka dalka ayuu yiri xildhibaankan oo la hadlay wararka online oo ka cudur daartay inaan magaciisa adeegsano. madaxweynaha Soomaaliya ayaa la ogaaday in uu kulamo la qaatay hal habeen laba beel oo ka tirsan beelaha Galmudug waana sababta keentay in digniinta ay soo saareen xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. xogta ay heshay wararka online ayaa sheegay in uu aqbalay madaxweynaha Soomaaliya joojinta kulamada aan midaysnayn ee dhaqanka Galmudug la qaadanayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. docda kalena mid kamid ah saraakiisha shaqaalaha qaramada midoobay ee Gaalkacyo ayaa xalay lagu dilay magaaladaas. kooxo hubeysan ayaa xalay magaalada Gaalkacyo ku dilay Maxamed Cabdi Khayre Finto oo kamid ahaa saraakiisha shaqaalaha hay'adda qaramada midoobay ee ku sugnaa magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug. dilka ayaa ka dhacay qaybta Gaalkacyo ee Galmudug waxaana Allah u naxariistay Finto toogtay laba nin oo bastoolada ku hubeysan xilli uu ka soo baxay masjid ku yaala xaafadda Astaan Hobyo ee Gaalkacyo. Finto ayaa ahaa nin si weyn looga yaqaan deegaanada maamulka Galmudug waxaana uu ahaa madaxii amniga hay'adda qaramada midoobay ee deegaanada maamulka Galmudug. sida ay wararka online u xaqiijiyeen dadka deegaanka kooxihii dilka geystay ayaa goobta ka baxsaday waxaana halkaasi gaaray ciidanka maamulka Galmudug oo baaritaano xoog leh ka wada isla markaasna baadi goobaya dadkii ka dambeeyay dilka Allah u naxariistay Finto.
ugu dambeyntiina faahfaahin dheeri ayaa laga helayaa heshiis degadeed oo dhex maray maamulka Puntland iyo dowladda Shiinaha. warar khilaafsan oo wararka online ee helaysa ayaa sheegaya in madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani wafdi balaaran uu hogaaminayo oo safar shaqo ku jooga dalka Shiinaha ee magaalada Beijing kulan kula qaateen madaxda ugu sareysa shirkadda China Civil Engineering Construction Corporation. shirkadda civil ee Shiinaha oo xarunteedu weyn ay tahay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha ayaa hore u dhistay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. haddana waxay Puntland ka wadaa mashaariic horumarineed oo ay ugu horeeyaan garoonka diyaaradaha Gaalkacyo iyo wadada eel ee gobolka Nugaal. wafdiga madaxweynaha oo ka kooban wasiirada wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland, kalluumeysiga iyo kheyraadka badda, ganacsiga iyo tamarta biyaha iyo macdanta ayaa waxa ay shir la qaateen madaxda ugu sareysa shirkadda Shiinaha ee Civil. kulankaas oo lagu kala siixday fulinta mashaariic horumarineed oo ay shirkaddu ka fulin doonto maamulka Puntland. wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland Faarax Cawash iyo madaxa shirkadda ayaa kala siixday dhismo dekedeed kalluumeysi oo casri ah oo shirkaddu ka hirgelinayso degmada eel ee gobolka Nugaal, taasi oo horumarinaysa ka faa'iideysiga kheyraadka badda, korna u qaadaysa shaqo abuurka iyo dhaqaalaha dalka, isla markaasna xoojinaysa xiriirka ganacsi ee ka dhaxeeya Puntland iyo Shiinaha. ugu dambeyntii wafdiga madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa inta ay dalka Shiinaha ku sugan yihiin waxa ay yeelan doonaan shirar iyo kulamo muhiim ah oo lagu xoojinayo xiriirka labada dhinac, isla markaasna lagu tayeenayo kaabayaasha dhaqaale Puntland. waxaana uu qayb ka yahay heshiis lagu dhisayo dekedda kalluumeysiga eel ee uu ballan qaaday xilligii doorashada madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. wararkaas ayaa ugu weynaa daawadayaal. haddii aad nagu soo biirtay waa mahadsan tahay. fadlan saaxiibada kale ee nagu soo biirana subscribe ha saaraan channelkan si ay ula socdaan wararkii ugu dambeeyay oo degdeg ah. waad ku mahadsantihiin la socodka wararkeena duurnimo.